komishineer ka tirsan komishanka hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland ayaa safar shaqo ku yimid magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaanay kulamo la qaateen maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco iyo sidoo kale shaqaalaha kala duwan ee ka howlgala xafiiska hay'adda dhowrista tayada ee gobolka Togdheer kulamadaas oo lagaga wada hadlay wada shaqeynta iyo dardargelinta howlaha qaranka ay u hayso hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland isiduwaha hay'adda dhowrista tayada ee gobolka Togdheer Maxamuud Salebaan iyo saraakiisha cashuuraha bariga ee kastamka deegaanka Beer ayaa komishineeradan uga waramay habsamo socodka howlaha shaqo ee hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland u hayso qaranka Soomaaliland oo kuurgalayay shaqadayada iyo hawsha say socoto maantana xafiiska iyo kartololkay beereed oo imkaan goobtan aan joogno hawsha say socoto iyo sidaan alaabta u baarino marka ayagan ku soo dhaw waan qabanaynaa wax laaliyo wixii dawaa ee aan soo marin sharciga waxaan nagu helinayay hay'addan controlka quality controlka Commissioner Faisal Maxamuud iyo sidoo kale Commissioner Maxamed Suufi oo kulamadaas ay la qaateen maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco kadib kormeer ku tagay kastamka deegaanka Beer ee gobolka Togdheer ayaa halkaasi kula kulmay dawooyin ay shaqaalaha hay'adda dhowrista tayada gobolka Togdheer ku qabteen controlka deegaanka Beer waxayna sheegeen inay sii wadayaan isla markaana kor u qaadayaan talaabooyinka lagu baadhayo cuntooyinka iyo daawooyinka soo gala dalka Soomaaliland Burco ku soo marnay anagoo dabcan la soo kulannay gudoomiyihii degmada gudoomiyihii gobolka iyo waaxdii maaliyadda ee gobolka Togdheer oo runtii intaba ay wada shaqeyn naga dhaxayso maanta halkan aan ku sugannahay waa Beer ama controlkii beereed ee bariga magaalada Burco anagoo taagan waxaan la kulannay daawo la qabtay sida hadda indhiina ku arkayseen daawadaasi wax alaali wax documentiya ama tixraac ay leedahay habeeraate ma jirto qaladaadka ugu badan ee ay maanta shaqaalaha heegankii aad baan uga mahad celinaya ay gacantooda ku qabtaan waxyaalahaas kamid ah dadka ganacsatada ah waxyaalaha noocaas oo kala ka ganacsanaya markay arkaan in jid aanay ugu lahayn qabtaasi gasho gudaha magaalada ama dalka Soomaaliland dib ugu ma soo noqdaan aakhirkana waan gubnaa waayo marka hore wixii waxay ku soo qaadanayaan sidii ay dukaan ay leeyihiin ka soo iibsadeen ma soo marayaan nidaamkii dawadu ay lahayd shuruucdii laga doonayay anaguna quality control ahaan waxaan habeen iyo maalinba u taaganahay anaga iyo shaqaalaha iyaguba waa ilaalinta muwaadinka iyo inuu dalkan soo galo wax tayadeeda la hubiyay oo dalka iyo dadkaba anfici kara maanta waxaanu joognaa hawlaha iyagii ama shaqadii aanu qaranka u haynay oo sidii caadada ahayd maanta waxaanu joognaa gobolka Togdheer ayaanu joognaa gobolkaas oo waajibaadkaygii shaqo aanu ka gudanayno oo aanu joogno maanta Beer kastamka Beer waxa weeye kastamada ugu waaweyn ee gobolada bari oo dhan wixii sanaa ka yimaada iyo wixii soo mara iyo wixii xuduudaha ka soo gudbaaba halka u santarahe ay isugu yimaadaan ay soo maraan waa controlka Beer controlkaas aan maanta taaganahay aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa shaqaalaha hay'adda quality control ee halkan jooga ee mar walba u heeganka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa booliiska qaybta ilaalinta cashuuraadka oo iyana halkan jooga oo wada shaqeyn fiican ay naga dhaxayso wasaaradda maaliyadda oo iyana customerkeedii uu halkan joogo custom officerkii oo isna wada shaqeyn aad iyo aad u fiican naga dhaxayso intaba aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxa weeye waa hawlihii aan qaranka u haynay ee aanu heeganka u ahayn ee naloo igmaday ayaanu ku jirnaa waanaanu wada soconaynaa Khaliil Barraawraan TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada Burco.